Berri waa maalin xambaarsan dhacdooyin waaweyn oo xasuus mudan, maalin ay ku kulmeen badbaado, samir, iyo mahadnaq Alle loo mahadnaqo. Berri waa maalinta Cashuura, laakiin maxay tahay sababta maalintani ay uga duwan tahay maalmaha kale? Maxay tahay sababta ka dambeysa soonka malaayiin muslimiin ahi ay sameynayaan maalintani? Maanta aynu egno sirta maalinta Cashuura. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Ereyga Cashuura wuxuu ka yimid afka Carabiga, waxaana loola jeedaa maalinta tobanaad. Waxay ku beegan tahay maalinta tobanaad ee bisha Muharram, oo ah bisha ugu horeysa ee sanadka Islaamka. Bisha Muharram lafteedu waa bil sharaf weyn leh. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu Quraankiisa ku sheegay tirada bilaha ee Alle agtiisa waa 12 bilood. 4 ka mid ah waa bilaha xurmada leh. Maalinta Cashuura waxay ka mid tahay maalmaha la xiriira bishan barakaysan. Sababta ugu weyn ee Cashuura loo soomayo waxay la xiriirtaa dhacdo weyn oo la xiriirta taariikhda Nabi Muuse calayhi salaam. Markii Nabi Muuse iyo reer Bani Israa'iil ay ka baxsadeen dulmigii Fircoon, Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u furay badda si mucjiso leh. Nabi Muuse iyo dadkiisa waa la badbaadiyey, Fircoon iyo ciidankiisana waa la halaagay. Markii Nabi Maxamed naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee uu yimid Madiina, wuxuu arkay Yahuudda oo soomaysa. Wuxuu weydiiyey sababta ay u sooman yihiin. Waxay yiraahdeen, tani waa maalin weyn, waa maalin Alle badbaadiyey Nabi Muuse iyo dadkiisa, Fircoonna halaagay. Markaas Nabi Maxamed naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi, anaga ayaa Muuse uga xaq badan idinka. Kadib Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuu soomay maalintaas, wuxuuna ku booriyey muslimiinta inay soomaan. Soonka maalinta Cashuura ma ahan oo keliya soon caadi ah, waa xasuus qalbiga ku jirta. Waa maalin lagu xasuusto in marka dulmigu xoog yeesho, awoodda Alle subxaanahu wa tacaala ay ka sareyso wax walba. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay, soonka maalinta Cashuura waxaan rajaynayaa Alle subxaanahu wa tacaala inuu ku dhaafo dembiyadii sanadkii ka horeeyey. Bal ka fikir, hal maalin oo Alle dartiisa u soontay, Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu kuu furi karaa albaabo waaweyn oo raxmadiisa iyo cafiskiisa. Waxaa wanaagsan in qofka muslimka uu soomo maalinta Cashuura. Wuxuu kaloo yidhi Nabiga naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee in lagu daro maalinta ka horeysa ama ka dambeysa si looga duwanaado dadka Yahuudda. Maadaama la soomayo maalinka tobanaad, qofka waa inuu bilaabo maalinka sagaalaad uu maalinka tobanaadna soomaa, ama haddii kaleeto maalinka tobanaad inaad soontid iyo maalinka 11aad aad ku dartid. Cashuura waxay ina baraysaa hal xaqiiqo oo weyn, in guush aysan ku imaanin awood aad leedahay. Mararka qaar waxaad noqon kartaa qof aan waxba qaban karin, awood yari ku haysato. Laakiin haddii uu Alle subxaanahu wa tacaala kula jiro, albaabo aan la filaynin ayaa kuu furmanayo. Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu hortiisa ka arkayay badda, cadowguna gadaashiisa ayay taagnaayeen. Laakiin wuxuu yidhi, maya, Rabbigay ayaa ila jiro, wuuna i hanuunin doonaa. Taasi waa fariinta Cashuura. Haddaba maadaama beri ay tahay Cashuura, ha ka dhigin maalintaadii maalmihii hore ee ku soo maray. Ka dhig maalin aad Alle subxaanahu wa tacaala u dhawaato. Maadaama lagu dhaafayo hal sano dembigii aad gashay, ku bilow soon, duca, towbad iyo quraan akhris. Waxaa laga yaabaa in hal maalin oo cibaado ah ay noqoto sababta Alle subxaanahu wa tacaala uu noloshaada dhan kuugu bedelo. Haddii aad ka faa'iiday muuqaalkani, la wadaag dadka kale si ay iyaguna ugu faa'iidaystaan. Waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.